Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Soo dhawaada dhalinyaro. Maanta waxaan jeclaystay in idiin soo gudbiyo filim lagu magacaabo The Bone Snatcher. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa saxaraha Banaam. Clive, Paul iyo Harvey waa koox cilmi baadhayaal ah. Waxayna u shaqaynayaan shirkad cilmi baadhis ah. Waxayna ku guda jireen shaqadooda. Waxaana loo soo diray in ay soo qaadaan dhagax weyn oo dheeman ah. Inta ay soo kormeerayeen meelaha sida gaarka ah loogu cayimay. Waxaa si lama filaan ah hortooda mar qura uga soo muuqday dhagax weyn una samaysan qaabka beedka ama ukunta. Kuna yaala dhex bartamaha saxaraha. Paul waxa uu go'aansaday inuu sawiro dhagaxa si uu u sameeyo cilmi baadhis qoto dheer oo ku saabsan dhagaxan weyn. Paul waxa uu isku dayay inuu ogaado waxa ku jira gudaha, isagoona la dhacayay bir adag si uu u dalooliyo. Balse waxa la yaab ku noqotay markii uu arkay dhagaxa in ay oogadiisa sare aad u jilicsan tahay, tahayna mid dalooshamaysa. Waxa uu fiiriyey gudaha isagoona u wacay labadiisa saaxiib ee la socday. Wax yar kadib waxa si lama filaan ah godka uga soo baxay noole argagax badan. Dhanka kale goobtan waa halka laga maamulayay cilmi baadhayaasha, waxaana soo gaadhay fariin ah inay khatar ku jiraan cilmi baadhayaashii. Zack isla markiiba wuxuu gudagalay in uu arrintan la wadaago qaybta isku xidhka ee shirkadda. Madaxa farsamadu waxa uu la dhacay shaqada Zack, isagoona u diray dhammaystirka mishinka. Dhanka kale waxaynu u jeednaa Zack oo yimid saxaraha. Zack waxa uu yimid shirkad macdanta ka shaqaysa oo ku taala saxaraha. Waxa uuna galay goobta ammaan sugidda shirkadda. Waxaanu halkaasi kula kulmay Mickey oo ah gabadh ciidan ah iyo nin askari ah oo lagu magacaabo Yohan. Waxaana uu u sheegay waxa ku dhacay cilmi baadhayaasha. Mickey waxay hore ka gashay shaqadeeda baadhista ah. Intii ay Mickey ku guda jirtay baadhista shandada Zack, waxay aad ula yaabtay mishiinka ku jira shandadiisa. Zack waxa uu u sharaxayay mishiinka iyo shaqadiisa. Mickey waxa ay raadinaysay notebook-geedii si ay u geliso magaca Zack, balse waxa qariyay Yohan. Tanina waxa ay ka cadhaysay askari kale oo lagu magacaabo Carl, waxayna sababtay in ay isdagaalaan. Yohanna waxaa lagu dhuftay madax, taasina waxay ku sababtay in uu kooma galo. Dhanka kale Mickey waxay u sheegaysaa Zack in ay u socdaan saxaraha iyada iyo saraakiil kale. Waxayna isla markiiba rarteen baabuurkooda, waxayna hore u sii wateen tiro badan oo shidaal ah. Markii ay in muddaha dhex socdaalayeen saxaraha, waxay arkeen laba meyd oo ku sugnaa goobta oo la furnoqday. Waxayna u fahmeen inay yihiin Paul iyo Clive. Argagaxay ku noqotay. Mickey waxa ay ku talisay inay wargeliyaan madaxda sare, balse Carl waa uu diiday, isagoo uuna ka shakisan inuu arrintan ka dambeeyay Harvey oo uu qalfoofka meydkiisu meesha ka maqnaa. Dhanka kale, Titus ayaa tiimka u qaylinaya. Waxa uu tusayaa raad la yaab leh. Qof kasta waxa uu aaminay in uu raadkan yahay Harvey. Waxayna bilaabayaan in ay raadka daba kacaan. Si dhaqsa ah waxa uu istaagaya Titus. Waxa uu tiimka u sheegayaa in uu raadkan yahay laba qof. Waxayna isku dayayaan inay ogaadaan raadkani waxa uu yahay, balse midkoodna ma oga waxa uu yahay. Cabaar kadib waxa ay soo gaadhayaan goob ay yaalaan qalfoof badan oo aad u weyn. Zack waxa uu isku dayayaa inuu qalfoofka taabto, balse Titus ayaa ka joojinaya kuna amray inaanu qofna taaban karin qalfoofkan weyn. Waxa ay ku sii soconayaan dabagalkii raadkooga, waxayna arkayaan meyd kale oo qalfoofa. Si kastaba ha ahaatee, Carl weli waxa uu ku adkaysanayaa in uu arrintan ka dambeeyay Harvey, iyaga oo weli sidii u daba socda raadkii. Waxa ugu dhacaya gobolka, waxaana ugu soo gelaya habeen. Dhammaantood waa ay seexdeen marka laga reebo Zack oo weli la argagaxsan wixii uu ku soo arkay saxaraha. Waxa uu isku dayayaa inuu maskaxdiisa wax kale ku mashquuliyo si uu u ilaawo una seexdo. Mickey ayaa soo aadaysa dhankiisa, waxa ayna ku agtaagaysaa mishiinkii iyadoona niyadda u dhisaysa. Si dhaqsa leh mishiinkii waa uu qaylinaya isagoona sheegaya in ay Zack u soo dhow yihiin wax naftiisa khatar gelin kara. Zack isla markiiba waxa uu eegayaa dhanka mishiinka. Waxa uuna arkayaa makhluuq weyn oo argagax leh oo dhankiisa soo socda. Isagoo naxdin la geeriraya ayaa u cararaya xaggii tiimka. Hurdada ayaanu ka kicinayaa, isagoona u sheegaya wixii uu arkay. Balse Carl ma rumaysanayo waxaan uu sheegaya Zack. Tiimka waxa ay bilaabayaan inay dhexdooda murmaan. Titus waxa uu ka sheekaynayaa inuu jiro bahal ku nool ciidda, isla markaana gala dadka kana dhiga qalfoof. Carl waxa uu u sheegayaa inay waxaan yihiin khiyaali, waana uu iskaga dhaqaaqayaa. Maalinkii xigtay tiimku waxa ay bilaabayaan inay halka sii wadaan dabagalkii raadkii, balse markan waxa ay arkayaan makhluuq dhex lugaynaya saxaraha. Carl waxa uu go'aansanayaa inuu dilo bahalka, waxaana ku furayaa rasaastiisa. Bahalkiina waxa uu bilaabayaa in uu kala googo'o oo uu dhulka qurub ugu daato. Tiimkiina waxa ay go'aansanayaan inay iskaga tagaan saxaraha dhanba, balse nasiib darro mar allaal mar ay gaadhiga saa u istaadhaan waxa gubanaysa mareegta gaadhiga. Kurt waxa uu isku dayay inuu hagaajiyo gaadhiga, balse waxa uu sheegayaa in ay qaadanayso muddo 7 ah. Mickey waxa ay isku dayaysay inay la xidhiidho xarunta guud, balse waxa ay ogaanaysaa inay ilaa raadiyaha cilad ku timaaday. Waxayna tiimka u sheegtay inayna haysan waddo kale oo ay kaga baxaan saxaraha.
oo aan ka ahayn gargaar si kedis ah ugu yimaada iyaga. 2 cisho oo ay saxaraha ku dhex go'doonsanaayeen, Zack waxa uu si lama filaan ah u arkayaa diyaarad dulduulaysa iyaga, waana u qaylo dhaaminayaa si ay u soo eegaan xaggooda, balse cidna uma soo jawaabayso isaga. Habeen kale ayaa ugu soo galay iyagoo weli sidii ugu dhex go'doonsan saxaraha. Markii la gaadhay kala badhkii habeenka, Kurt waxa uu u soo dhowaaday Titus, waxaana uu sheegay in ay gaadhay xilligii uu ilaalin lahaa iyaga. Intaa kadib Kurt waxa uu isku duuduubay bac meesha taalay. Cabbaar kadib Titus waxa uu indhihiisa ku arkayay makhluuqii la yaabka lahaa oo sii gelaya bacda uu ku hurday Kurt, waxaana uu u soo cararay xagga Kurt si uu u hubiyo waxa uu arkayay. balse waxaa la yaab ku noqotay markii uu arkay Kurt oo isku beddelay qalfoof. Titus waxa uu u qeyliyey tiimka, waxaana Titus u yimid Carol oo sita qori. isla markaa makhluuqa ayaa ku guulaystay inuu dhaawaco Titus. Carol waxa uu si dhaqsi ah u toogtay Kurt. Titus si dhaqsa ayaa loola cararay xagga gaadhiga si loogu daweeyo. Iyaga oo weli la tacaalaya daweynta Titus, Carol ayaa si dhaqsa ah u arkay makhluuqii weynaa oo ka soo daba muuqday Zack, waxaana uu uga baaqay indhaha si uu ugu banneeyo. Zack waa uu fahmay waana uu u banneeyey. isla markiiba waa uu toogtay Carol bahalkii. Makhluuqiina waxa uu bilaabay inuu dhulka ku daato, balse si dhaqsa ah ayaa uu makhluuqii iskugu soo noqnoqday, isagoona ku soo noqday sidiisii caadiga ahayd. waxa uu go'aansaday inuu xabad kale ku dhufto bahalka, balse Zack ayaa isku duuduubay iskuna maray. taasina waxa ay sababtay inuu dagaal ka dhex qarxo dhexdooda. Mickey waxa ay u sheegtay in ay joojiyaan dagaalka. tiimkii si dhaqsa ah ayay iskugu soo urureen, iyaga oo qorsheynayay sidii ay saxaraha uga bixi lahaayeen. waxayna go'aansadeen in ay u lugeeyaan saldhigga ugu dhow, una jira 40 kiiloomitir. sidoo kale waxa ay go'aansadeen in ay Magda kaga sii tagaan saxaraha si ay ula sii tacaasho Titus. maalintii xigtay, Mickey, Zack iyo Carol waxa ay u anbabaxeen safarkoodii. Cabbaar markii ay ku dhex socdeen saxaraha waxa ay ku xayirmeen duufaantii bacaadka oo soo dhowaatay. kadib markii ay ka soo baxeen duufaantii bacaadka, waxa ay raadsadeen alaabtoodii, waxayna ogaadeen in uu shidaal badan kaga dhammaaday meesha, ilaa ay cadceeddii ka gaabatay. waxayna arkeen geed qalalan oo ku dhex yaala saxaraha, waxayna go'aansadeen in ay caawa u baxaan geedka hoostiisa. Zack waxa uu go'aansaday inuu geedka ku goobaabo ama ku wareejiyo gaas. tanina waxa ay makhluuqii weynaa ku kalifaysaa inaanu u soo gudbin dhankooda. Cabbaar kadib, Carol waxa uu tooshkiisa ku ifiyey makhluuqii weynaa oo u soo socday dhankooda, balse waxaa la yaab ku noqotay markii ay arkeen makhluuqa weyn oo sita madaxii Magda. taasina waxa ay xaqiijinaysaa in ay Magda ku daysay, sidoo kale Titus. makhluuqii weynaa waxa uu isku dayay inuu u soo gudbo dhankooda, balse uma soo gudbi karo sababtoo ah jidhkiisa ayaa gaasta diidaya. maalinkii xigtay, tiimkii waxa ay ku soo tooseen qaylo ka soo yeedhaysa raadiyaha baabuur agtooda yaallay, waxayna u kaceen xaggii baabuurka. si kedis ah waxa ay u arkeen dhagaxii weynaa, waxayna go'aansadeen inay gudaha u galaan. markii ay dhagaxii weynaa gudaha u soo galeen, waxa ay isweydiiyeen dhagaxani halku ka yimid, muxuu noqon karaa. wadahadal badan kadib, inuu dhagaxani yahay halka uu galo makhluuqa weyn. iyaga oo weli sidii u wada tashanaya, waxaa goobta yimaaday Yohan, waxaanu ku amray tiimka inay dibadda u soo baxaan. Zack waxa uu isku dayay inuu u sharaxo wixii dhacay, balse Yohan ma uu dhegaysan. taa beddelkeedana waxa uu ku amray inay soo baxaan. markii ay tiimkii dibadda u soo baxeen, Yohan waxa uu ku hayay qori, isaga oona ka shakisanaa in ay dileen cilmi-baadhayaashii, sidoo kalena ay hayaan dhagaxii weynaa ee dhamanka ahaa. waxa uu ku qasbay inay fuulaan gaadhiga, isaga oona u jeebeeyey sida maxaabiista. waxa uu u weeday inuu geeyo xaruntii guud, balse markii ay in yar socdeen, Carol ayaa xagga dambe ka weeraray. taasina waxa ay sababtay inay iska furaan jeebooyinka. tiimku waxa ay ka wada tashanayeen sidii ay uga bixi lahaayeen saxaraha. markii ay dejiyeen qorshayaasha ay kaga bixi lahaayeen saxaraha, waxa ay ogaadeen inuu Yohan watay dareere qaraxa, waxayna u yaaceen inay soo qaadaan dareeraha. wax yar kadib, Carol waxa uu bilaabay inuu raadiyo makhluuqii weynaa. taa beddelkeeda, Zack iyo Mickey waxa ay ka dalbanayeen inuu joojiyo raadinta, balse waa uu ka dhagaaday waxaanu sii waday raadinta ilaa ay bir weyni kaga dhacday cagta, taasi oo sababtay inuu dhaqaaqi kari waayo. waxaana yimaaday makhluuqii weynaa, isagoona isku dayay inuu Carol u dhammeeyo. Zack waxa uu riday qorigiisa si uu u mashquuliyo makhluuqa weyn. makhluuqa weyni intuu ku mashquulsanaa codka xabadda, Zack ayaa xagga dambe kaga yimid waxaanu ku riday god dheer. taa beddelkeeda, Carol waxa uu u mahad celiyey Zack, isagoona u sheegay inuu naftiisa badbaadiyey. si lama filaana waxaa ku soo laabtay makhluuqii weynaa,
isagoona lugta qabsaday Coral. Saki iyo Mickey waxa ay isku dayeen inay badbaadiyaan Coral, balse markii uu arkay inuu makhluuqu ka quwad weyn yahay iyaga, waxa uu go'aansaday inuu naftiisa u huro sidii uu u badbaadin lahaa dadka. Waxaanu iska furfuray gacanta Saki iyo Mickey, waxaana isku sii dhex daayay godkii makhluuqa weyni ku dhex jiray, isagoona la soo baxay dareerihii qarxayay. Dhanka kale, Saki iyo Mickey waxa ay la naxsanaayeen qaraxa weyn oo sababay in ay meesha dhani gariirto. Waxa ay arkeen ukun, taasi oo ah sababta ka dambaysay in makhluuqu ugaadhsado dadka. Sababta uu makhluuqani dadka u ugaadhsanayna waxay ahayd si uu u guumaysto dadka. Dhanka kale, Saki iyo Mickey waxa ay si toos ah uga soo ambabaxayaan dhanka iyo saxaraha, iyaga oona u soo noqonaya noloshoodii caadiga ahayd. Balse waxaynu u jeednaa ukuntii yareed ee ka dambaysay inuu makhluuqu ugaadhsado dadka in ay saarnayd shandad ay wateen, kuna soo riteen gaadhiga, waxayna la soo aadayaan dhanka iyo magaalada. Filinkuna intaasi ayuu ku soo dhammaanayaa. Fadlan daawada haddii aad ka heshay qaabka aynu soo gudbinay muuqaalka, fadlan like saar, subscribe-na dheh channelka. Waad ku mahadsantahay.